nabad dadweyne soo dhawaada dhambal dhigta ama haddaad doontaan gambarkiinaba soo qaata waa biladay hal lagu sheego ama hal lagu sheege maantana waa hal lagu sheego Jawharaddii Marka Cadey magaalada Marka oo markaan ay ka muuqdaan dagaaladii dalka oo idil halakeeyay dhaawicii iyo nabaradiina ay wali ku yaalaan magaalada oo iska dansan oo sugaysa albaabo iyo liibaan ka timid Rabbi ayaa waxaa mar qura iftiintay magaaladii shaqo abuur hubka dhigis aqoon abuur farsamo abuur dhismayaal qurxoon gawaari wada ifaysa magaaladii baa mar iswada bedeshay Rabbi ha u naxariistee Samofasho Istarliin Cabdi Caruush waxay marka u noqotay jawharad iftiimisay magaaladii oo dhan waxa ay hormuud ka ahayd hay'ad weyn waxayna toos u bilowday gargaaridda bulshada Marka iyo agagaarkeeda si ay u helaan adeegyada asaasiga ah ee kala duwan sida furidda iskuulo bilaash ah oo ardayduna ay ka helaan cunto bilaash ah dayactirka dugsiyada quraanka in ardayda dugsiyada meeshooda loogu helo cunto iyo mushaarka macallimiinta waxay sameysay shaqo abuur gargaarka agoonta dhismayaal kanaalada waraabiya beeraha goobo waxbarasho kala duwan dayactirka garoomada ciyaaraha kala duwan ayaana halkaa ka baxay oo bilay magaaladii Samofasho Istarliin waxaa kaloo ay ahayd gudoomiye ku-xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyadoo ahayd haweeneydii u horeysay ee xilkaas sare ka qabata guddigaas mid aniga si gaar ah ii soo jiidatay ayaa ahayd isbitaalka magaalada oo muddo go'yaal badan xirnaa oo hooyada foosha ah loola ordi jiray isbitaalka Dr. Xaawo Cabdi Dhiblaawe ee deegaanka Dr. Xaawo Cabdi oo qaar ay dhaxda ku sii umul raacanayeen ayaa loo helay gurmad gargaar iyo badbaadin isbitaalka oo aan anigu booqday indhaheygana ku soo arkay hawlihii kala duwanaa ee ka socday aminta ay Istarliin magaalada u ahayd baxnaanisada sidoo kale waxa aan indhahayga ku soo arkay hay'adda iida oo halkaas ku haysay dhalinyaro hubka dhigis lagu sameeyay oo kor u dhaafayay 154 oo la barayay farsamooyinka beeraha iyo kalluumaysiga haweenkana farsamooyinka alindiga sida loo tolo iyo farsamooyinka kala duwan ee cawda la falkiyo laga hal abuuro magaaladii ayaa soo kabatay muddo yar gudaheed waxaana ay noqotay meel ay ku sii qulqulayaan wariyayaasha iyo fanaaniinta ha ka reebin bahda isboortiga Istarliin oo aan anigu si weyn u aqaanay waxa ay ahayd iftiinkii Marka waxa u dheeraa deeqsinimo qof u tagay kagama soo laaban faramarnaan qof aqoon leh degan aan isla weynayn walaal iyo waalid jecel Soomaaliduna ay isugu mid ahaayeen Samofasho Istarliin Cabdi Caruush waxay ku dhalatay isla magaalada Marka 1957 isla Marka ayay wax ku baratay dugsiga sarena waxay ku dhamaysay magaalada Muqdisho jaamacadna waxay ku tagtay dalka Talyaaniga magaalooyinka Parma iyo Torino Istarliin halgankeeda waxay ka soo bilowday dalka Talyaaniga kadibna 13 sano kadib waxa ay Soomaaliya ku soo laabatay amin ay dadka oo dhami ka cararayeen oo ay dalka dibadiisa u wada dhoofayeen oo ahayd xilligii ay Soomaaliya xaaladeeda ugu adkeed iyadu waxay u arkaysay in xilligaas uu baahnaa dalkeeda waxay dib ugu soo laabatay Soomaaliya 1991 waxayna ka qayb gashay hawlo badan oo isugu jiray nabadeynta iyo horumarinta Istarliin Cabdi Caruush eebaha u naxariistee waxay ka mid ahayd shakhsiyaad gaar ah oo naftooda u huray Soomaaliya iyo gurmadka Soomaalida waxayna ku caanbaxday ka shaqaynta nabadeynta dalka Soomaaliya Istarliin waxay ka mid ahayd dad tiro yar oo ka sii hadlay halista argagixisada
iyadoo aanba laga warhayn jiritaankooda dadka badankoodna ayna ku baraarugsanayn. waxa ay gacmo ka gardaran ku dileen weerar ka dhacay afaafka guriga ay ka deganeed Nairobi bishii Oktoobar 2002. shirka dib u heshiisiinta ee xilliga ka soconaya Eldoret oo ay ka qaybgal kaliya ma ahayn ee waliba ka mid ahayd dadkii soo qaban qaabiyay shirka oo ay adduunyada kala hadashay in xaaladda Soomaaliya mar kale indhaha ay u furaan. beesha caalamkana ay ka soo dhaadhicisay in la dhigo gogosha nabadeynta Soomaaliya ee Kenya. geeridii Istarliin Cabdi Caruush eebbaha u naxariistay ayaa si isku mid ah u wada saameysay dhammaan dadkii ku kala qaybsanaa shirka nabadeynta oo aan ku kala qaybsamin qaraacankii geeridii Istarliin Cabdi Caruush eebba janooyinkiisa ha ugu deeqee.